wanqalka buuggan cusub ee cibaaro oo qoray qoraaga caanka ah xalane ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladiisa mas'uuliyiin isugu jira golaha xukuumadda asxaabta qaranka aqoon-yahanna iyo ardayda jaamacadda ugu horreyn hadal uu halkaasi ka jeediyey cali guri oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbi xaakimka ayaa waxa uu ka warramay maanta sida loogu baahan yahay in taariikhdii iyo afkii awooyaasheen aynu barno islamarkaana wax laga qoro sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal iyo madax dhaqameedyo ka tirsan dadka suugaandhaadhiga ah ee u dhashay dalkeena Soomaaliland hadii uu halkaasi ka jeediyey Xuseen Aadan Cabdi oo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbi xaakimka kulmiye ayaa waxa uu sheegay sida ay muhiimiyadda u leedahay in maanta aynu wax weyn ku soo kordhino afkeena sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Dahabshiil oo sheegay in shirkadoodu ay u taagan tahay maalgelinta wax wal oo wax u taraya afkeena hooyo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socota shirkadda Telesom Faysal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga Ucud ayaa isagu sheegay sida ay maanta laga maarmaanka u tahay inaynu dib ugu noqono taariikhdeena iyo dhaqankeena iyadoo mas'uuliyiin badan ay halkaasi ka hadashay isla markaana lagu iibsaday cadad badan oo kamid ah buugga cibaaro ayaa isaguna waa halkaasi faahfaahin badan ka bixiyey sida buugga uu qoray iyo waliba suugaantu adeegsaday xalane oo qoraaga buugga gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hadlay afka xukuumadda Mr. Salman Ali Kore ayaa sheegay sida xukuumaddan uga go'an tahay in uu dalkan horumar u gaarsiiyo haddii noqon lahayd dhinaca afka iyo haddii noqon lahayd dhinacyada kaleba waxaana ka mid ah hadaladii Mr. Salman kuwan haddii hargeysa aqoonta lagu ammaanay iyo taariikhda fankana iyo gabayadana aad iyo aad buu isha uga toogtay inuu buugagtiisa ku soo bandhigo hargeysa xukuumadda aan ka tirsana way soo dhaweynaysaa in af Soomaaliga la horumariyo waxay soo dhaweynaysaa in dhaqanka iyo ummadda qiyamkeeda la horumariyo inay ummaddani afkeedu noqdo mid ay iyadu ku isticmaasho aqoonta ay rabto inay ku horumariso waddankeeda aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay in xalane uu keeno